السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيادتي تبان سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sidee baan u samaysan lahayn qaybta labaad aan bilaawayna aan ku samayna arday labaad magaciisa Ibrahim Cabdullaahi insha Allah midna kan waxaan rajaynayaa inaad fikrad badan ka qaadan doontaan waxaan isticmaalaynaa Photoshop CC waxaan isticmaali kartaa nooc kasta oo Photoshop ayaa isticmaali kartaa wax kala duwan ma lahan marka aan bilaawno sidaan u samaysan lahayd bannerkaaga YouTube. Welcome to my YouTube channel. marka waxaan isticmaalaynaa folderkan new bannerka descriptionka kasoo dhalan gelisay waxaan dhanba oo la dama sawiradan ayaan isticmaalaynaa ma u baahnina meelka kasoo dhalan gelisatid kadibna markaan tuso sidaan ayuu u kaana insha Allah bidna kariim wajida magacii saan u sameeyay telefoonka androonka kadibna photoshopkaaga ayaa soo furinaysaa kadib waxaa leedahay file kadibna new ayaa dooranaysaa kadibna waxaa ka dhigaysaa 25 60 haygan waxaa ka dhigaysaa 14 40 kadibna okay ayaa leedahay hadda waxaan ugu diyaaraa saaskii template-kii ayaan soo qaadanaynaa si aan ugu qaadno saaska file kadibna place ayaan soo dooranaynaa kadibna waxaan tegaynaa template-kii YouTube-ka ahay ayaan waxaan ka qaadanaynaa in aan ka qaadano cabirka saxda ah meesha ku jira ayaan raadinayaa waxaan soo waraa insha Allah binakan waxa kasoo dhalan gurisanaysa description-ka ha ka walwalin kadib jeeka meeshaas ka qaad kadibna waxaad tegaysaa view ayaa tegaysaa kadib waxaa leedahay rule oo control R ah kadibna drag ayaa ku sameynaysaa masarada kadibna haddii kaa qaldanto kale move ayaa tegaysaa kadibna moving ayaa ku sameynaysaa oo v ah kadib dragna ayaa ku sameynaysaa click drag kale click drag waad isticmaalaysaa dhammaan click drag ayaa isticmaalaysaa kadibna click drag all click drag marka cabirka dhamaysatid marka hadda waan ka maaranay marka waxaan sameynaa right click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay delete ayaa leedahay kadibna okay markaan waa iska tirnay hadda waxaan u baahanaa background-kana soo qaadana file kadibna waxaan leenahay place kadibna waxaan leenahay desktop-ka sawirka aan tegaynaa new bannerka double click pg-ga si kadibna background-ka hadda waa noo diyaar kadib jeeka ka qaad marka hadda waxaan u baahanaa inaan soo qaadano bannerkii ayaan rabnaa inaan soo qaadano file kadibna waxaan leenahay place ay mar kale tegaysaa kadibna waxaan soo qaadanaynaa banner 1-ka kadibna dragna ayaad ku sameynaysaa kadib dhinaca kale ku cabir kadibna jeega ka qaad kadib waxaad dhigtaa rectangle marquee tool ayaa soo dooranaysaa kadibna markaa ku cabiraysa haddaa moving u baahato waxaad sameynaysaa spaceka ayaad riixaysaa wax dhimanaan si aad moving ugu samaysid marka cabirkii saxda ah wax yar ayaan ku darayaa inaan ziyaada ana ku darsado laakiin aad cabirka saxda waa gin kartaa kadibna waxaa leedahay maski ku sameey kadib ujeedaa marka maska ku dhufatid calaamadii inta ku saarneed ayuu muuqanay inta kale uu qornaa file ayaa leedahay kadibna place ayaa leedahay kadibna bannerkii labaad aan soo qaadanaynaa click ayaad ku siinaysaa marka kan waxaan isticmaalaynaa kalar ahaan ayaan isticmaalaynaa kadibna cabirka gey kadibna dhinaca kale ujiid kadibna jeega meeshaas ka qaad kadibna click ku sii bannerkii hoose si aad selection-ka ugu qaadatid layerka qaybtiisa ma aha maskiga layerka dushiisa ku dhufanaysaa kadibna ka koro ayaa tegaysaa kadibna maski ayaa leedahay sida u qariyo inta doorto la muujiyo inta kale qariyo marka layerka dushiisa ayaa tegaysaa kadibna normalka waxaa ka dhigaysaa multiply ayaad ka dhigaysaa si oo kalarka nooga dhigo marka waxaan isticmaalaynaa inaan tagaska soo bino hadda normalkay waxaan wili multiply layerkana waa muujinaa si fiican si loo arko inta qayb aan marayna marka sabsoo ardayga la socdo kadib tagaska ayaa tegaysaa ka bagte waxaan dooranaynaa markaan tagasigana isticmaalno magaca ugu qoranayna ardayga Ibrahim marka far waaweyn ayaan ka dhigaynaa impact regular ayaan dooranaynaa kadibna click ayaad ku siinaysaa waxaan qoraynaa Ibrahim kadibna caps lock ayaa sameynaysaa sida far waaweyn aan weshid kadibna Ibrahim ayaan qoraynaa kadib waxaa leedahay jack meesha ka qaad kadib edit kadibna filter font tag oo control T ah kadibna shift alt isla qabo dragging ku sameey inta badan waxaan isticmaalaynaa waa mouse-ka sida ardayda bilaaga u arkaan wax keyboard ma isticmaalayna insha Allah bidna kariim kadibna inta cabirka marka artina geysatid oo ku diyaar yahay jeega ayaa meesha ka qaadaysaa kadibna tagasiga qaybta name-ka dushiisa ayaa double click ku siinaysaa meesha banaan kadibna waxaad tegaysaa bubble-ka markaad tegtid click ku sii dushiisa kadibna impress ka dooro kadibna gsl head inuu ku ahaadaa 95
7 0 waa inuu ku ahaadaa intaan wax kala duwanaanin gradient-na description-ka kulli kood helisaa ayadoo hal mar lay ku jiro kalarkan isticmaalaynaa kadib gradient nooca artid ayaad isticmaali kartaa sida ugu talagashay okay ayaa leenahay anaga kadibna okay kadib right click ayaa leedahay duplicate aan ku sameynaa oo control J loo soo gaabiyay kadibna waxaan leenahay layerkan layer 2 ayaan u bixinaynaa si aan u helno layerkii labaad magac ayaan rabaa inaan array qaar ka tiro marka kan hore waxaad tagaa gradient ayaa click ku siinaysaa kadib meeshaas waxaad u bedelaysaa white adii kalarkii aragtid adaa u bedelinaysid double click see kalarkii markaa u bedeshid okay aad dhahdid kadibna okay ayaa leedahay kadibna text ayaan tegaynaa sidaan movie ugu sameyno laakiin kan kor waa white marka white-ka ayaan hoos keenayaa si aan kalarka kor u aado dragon markaa double click siiyo inta rahamka ayaan ka tirayaa delete ku sameynayaa highlightaas saar textiga kadibna jeega waa ka qaadaa kan hoose markaan jeega ka qaado isha ujeedaa in kan hore ibis isticmaalayo kanana ereyadiis dhammaystiran yihiin marka ujeedaa waa hadda waa noo diyaar labadoo markaa double click siisay group ayaa u sameynaysaa sida selection samaysid group ay haddana ku yihiin ujeedaa kadib waxaad tegaysaa in aad textiga labaad u samaysid textiga labaad ayaa tegaysaa marka waxaan isticmaalaynaa hobo state medium ayaan isticmaalaynaa qaybta hoose adiga nooca artid adaa isticmaalaysid dooqaaga kadibna meel baan markaa ku dhufto textiga waxaan ku qoraa cabdullaahi kadibna impact weli ii saaran kadib hobo ayaan leeyahay HOP kadibna textiga control ayaa riixaysaa kadibna dragging ayaa ku sameynaysaa kadib markaa dragging ku samaysid cabirka aragtid markaa geysid kadib jack ayaad ka qaadaysaa kadib textiga waa ujeedaa labada text waa ku diyaarsan tahay waxaad leedahay copy styleka ayaad kasoo kobiyeysanaysaa cabdullaahi ayaa imaanaysa haddana right click ayaa ku leedahay rasterize ayaa leedahay saa u wadashid caadiga kadib waxaa leedahay right click kadibna basti layer style ayaad ku leedahay sidaas ayuu si automatic u qaatay markastaba kadibna waxaan u baahannahay marka inaan soo doorano inaad soo doorto round rectangle tool ayaa soo dooranaysaa dragging ayaad ku sameynaysaa waxaad qabanaysaa sidaan ku sheegay movingkaba spaceka ayaad isticmaalaysaa kadibna waxaad tegaysaa fiilka stroke waa ka xiraysaa fiilkana waxaad ka dhigaysaa black si kadibna waxaan ka qafifi doona wax dhib ma lahan kadibna waxaad tegaysaa si aan muujino waxaa ku laabanaysaa properties ku laabo si fiican saa u aragtid properties markaa imaadid meeshan ayaan waxaa rabnaa inaan ka dhigno size-ka saa u cabir leed markaa rectangle-ka dham inta saart u yeeshid dhinaca artid ayaad u quluuci kartaa kadib waxaan meeshaan ka dhignaa 130 kadib inter ayaa leedahay soo wada qaato dhammaantood kadibna jaga iska qari kadibna layerkeena dhinacna ku ceshano kadibna ujeedaa waxaad soo doonaysaa rectangle marquee tool dragging ayaad ku sameynaysaa spacekana meesha artid ayaad geysanaysaa kadibna markaa cabirka geysatid waxaad dul tegaysaa meesha select ku saarneed kadibna maski ayaa leedahay si u qariyo intaad horta baan inta kale inuu qariyo kadibna opacity-ga waa ina layerka dushiisa ku dhufataa maaha maskiga kadibna waxaa leedahay opacity-ga 30 ka dhig ogow ma ahan maskiga dushiisa waa ina layerka ku dul dhufataa kadibna fail ayaa leedahay kadibna place ayaa leedahay markaa waxaa soo qaadaysaa tutorka ayaa soo qaadanaynaa kadibna dragging jaga ka qaad kadibna dragging ku samey move tool tag dragging ku samey cabirka aragtaan geysanaynaa kii adiga sida artid aad taqaanid edit tag kadibna filters form tag oo control T shift alt isla qabo kadibna jaga qaad cabirka aragtid markaa geysatid kadibna waxaad tegaysaa moveka meel bana si fiican adaa u geysaysa ama arrowga isticmaal up iyo downka iyo geesahaas nooca aragtid ayaa isticmaali kartaa marka moveka selection ku saariya control V kadib waxaad tegaysaa right click ayaad ku leedahay kadibna waxaad leedahay basti layer style ayaa leedahay kadibna gradient ayaa double click siinaysaa meeshaas rosaha waxaa u bedelaysaa white ayaad u bedelaysaa kala sabinkiga white ayaa u bedelaysaa okay ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay kadibna okay stylekii wuu qaatay styleka marka copy dheh waa u baahan tahay right click copy style waa aad u isticmaalin inta badan kadibna textiga ayaan sameynaynaa oo @ibrahim ayaan leeyahay ما أنا تصالح ما أنا عوان صح لكن تصالح أنا سمينا نملوجا كابس لوج سكحر هدي أرت فرير بهانتاي هذا فرون بهاندنا كوش النقطة لكن أنت بدأنا فرير هذا استعمالها ما كسوشيال ميديا استعمالها لا سوشيال نتورك أنت بدأنا كده من التكستيجا
انت تعبر كذا جيسيس لكن انا فرتي سديد ايان جيستي كدي موفين ايان كسميه نوع سترونج وين كو هاتا جاكاس كقاد كدبنا لبضوضة سelection ايان كسمينينا كان كرو دورة كدبنا كنترول ريح لبضوضة كليكسي كدب جروب دابو كنترول جي كدبنا waxaa leedahay move tool ku sameynayna rectangle ka hoose si aan cabirkii hoose aan kor u qaadno aan saxno kadibna waxaan ku laabanayna qaybta tutorka waxaana up iyo down ka ayaan isticmaalayna falaaraha si nagu sahlanaato marka calaamada geysatid okay waa intaas marka waxaan u baahannahay kaliya in aan isticmaalno layer inaan dhahno kadibna aan fail tagno kadibna aan dhahdo place dhahdid kadibna waxaan soo qaadaysaa iconka Facebook ayaan soo qaadanaynaa kadibna jeega klik ku sii duraan ku sii okay magaca hore noo soo qaad meesha isku xili kadibna control ka klik ku sii soo selection kugu sameeyo hadda markaan waxaan leenahay right click paste layer style ayaa leedahay automatic si toos ayuu qaatay adoo u dhibtoonin hal mar maraan sameeyna inta kale baasta isticmaalaysaa markasta u baahdid kadibna textiga ayaan u baahanahay inaan copy ku sameeyo textiga ayaa selection ku sameynaysaa kadibna aaltada ayaa riixaysaa click drag ku sameynaysaa aaltada markasta waa haynaysaa click drag hadana ku sameynaysaa saddexdaas inta ardisaas ugu dhigi kartaa kadibna right click aad ku leedahay place ayaa leedahay waxa soo qaadanaysaa markaan andronka ayaan soo qaadanaynaa andronka markaan click ku siino double click siisa ujeedaa oo noo soo galo waa ujeedaa inuu kasoo kor maray qaybtaan u rubnay baanalka jeega ka qaad kadibna saan kugu sheegay waxaad sameynaysaa control bracketka ayaad isticmaalaysaa sidii hoos kugu geeyo kan hoose waxaan leenahay downka ayaan isticmaalnaa bracketyadaas ayaad isticmaalaysaa sidii hoos u galay gudaha layer kastoo gudaha u tago kadib markaan inta noo noqdo kadib waxaad tegaynaa inaad soo dooratid elvis tool ayaan soo dooranayna aan rabno gmail inaan sameyno shift adoo riixiisa ayaad drawing ku sameynaysaa facebook markaan ku cabirno meeshaas ayaad gelinaysaa markaad haynaysa waa inaad shiftiga sii haysataa jeega markaa kiciisa keligta kadibna fiilka waxaa ka dhigtaa white strogana iska xir mu baahnid strog iska xir kadibna right click ku dheh kadib waxaa leedaha paste layer style kadib markaa dhahdid oo si automatic ayuu qaadanaa ujeedaa kadibna jeega meel banaan ku dhufo kadib tagasiga soo dooro G+ ayaan u sameynaynaa markaan calaamada Google Plus oo kale Pluskaan leenahay kadibna double click ayaa tagasiga siinaysaa saas white ayaad waxaan ka dhigaynaa backgroundka ayaan u kaysiinaynaa si aan loo arkin marka white-ka dulgay ka muuqato move ku siiya ujeedaa markaan dusha geena calaamadii wax ka muuqanaysaa inay gudaha ku jirto kale kadibna waxaan ku dhufanaynaa tagastiga kor u qaad hoos ayuu ku jiri karo inoo qaado kadibna double click si tagastiga ayaan nooc qurux badan ayaan soo raadinaynaa si calaamada si fiican loo arko jiga marka noocan marka waxaan ka dhigaa meeshaas 48ka 60 ayaan ka dhigaa strong way kadib jeega meeshaas ka qaad kadibna arrowga isticmaal up iyo down ka si sahla sida ku kala gudubtid kadibna fail leh kadibna place leh marka waxaan soo qaadanaa calaamadihii windowga ayaan soo qaadanaynaa kadibna jeega ka qaad dragging ku sameynaysaa kulligood kadib dragging ku samey kadib jeega qaad kadib fail haddana replace kadib waxaan soo qaadanaa markaan window 7 ka calaamadiisa kadib dragging aan ku sameyno marka way adagtahay inta badan inaad ilaalisid hadalkaaga iyo markaad sameynaysid designka marka waxay ku fiican tahay inta badan marka designka sameynaysid inaad maskaxda degan tahay oo ilaalinaysid laakiin inaan waxaan sameynayo sheego dragging aan ku sameynaa saan sameynaa marka way adag tahay marka insha Allah billahi kariim markaan aan sameeysid meesha ku aadisid jeega ka qaadaysaa kadibna move ka aad joogtid sidaarta u cabaraysaa marka insha Allah billahi kariim casharkeena 15 daqiiqo intaas ku ogyahay marka insha Allah billahi kariim waxaan rajeynayaa insha Allah billahi kariim in aad dalabkooda ogolahay adinkana waa ku mahadsantihiin subscribe ka ku sameyseen channelka inta badan comment ka bixisaan waa mahadsantihiin muhiimadana waxay tahay cilmiga marka artina bartid walaalkaana u faa'iiday sababtoo khayrukum man ta'allama al-ilma wa 'allama waxana tijaabo adina nafteeda anoo u barana kaliya adinkii ma ahan ana markaan wax barto adinkana barataan cilmiga saas ku wanaagsan yahay saas ku wanaagsan cilmiga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.